دفن عليك أمامي في الجنة يا بلال شنقد هذا كبهاga shanqadhoodii ayaan jannada hortayda ka maqlee maxaad igaga badiso halka ku gaadhay rasuulku yiri wuxuu yaa rasuulallah anigu waxaan laazimaa tahaarad ayaan laazimaa meesha weysadu ay igaga jabtana waan ku weysa qaataa dadna salaadna ilaahay inuu ii qadaray baan tukada intuu Allah ii qadaray baan tukada markaa buu nabigu ugu jawaabo ku yiri hadhihi hiya allati balagatka taad maqaamka ku gaadhay waa weysa qabka aad laazimtay iyo markaad weysa qaadataan labada ragcadood tukanayso taad maqaamka ku gaadhay waa taabu rasuulku yiri walaalayaal qofka bini aadanka waxa darajadaada kor ku qaadaya ee qiimo ku yeelaya maaha lacag maahin qabiil maahin cilmiga maadiga dadku maanta ay run moodayaan maaha maadada iyo daaraha lagu tartamaye waxa qofka bini aadanka kor u qaadaya waa iimaankii camalka saalixa man kana yuriidu al-izzata falillahi al-izzatu jamii'a qofusiyay usika ya muad waxaan kugula dardaarmayaa buu nabigu ku yiri la tad'anna fi dubri kulli salah an taqul اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ waxaan kugula dardaarmayaa salaad walba gadaasheeda inaanad ka tagin inaad tiraadid ilaahu aniga waxaad igu kaalmaysaa ilaahu waxaad aniga igu kaalmaysaa taacadaada iyo dhikrigaaga iyo cibaadadaada teeda wanaagsan cibaadada wanaaggeega maada nabigu ma siinayna ka jecel yahay adduunyo ma siinayo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam shakhsiga uu nabi maxamed jeclaado waxa la siinayaa acmaal ilaahay u dhaweynaysa waxa loo sheegayaa ducada ilaahay jalla wa ala al-khazaa'inta ilaahay furaheega lagu furanayo nabigu siinayaa wala adri habeenka Mucaad bin Jabal kayfiyadee buu ku saxday Ubay ibn Ka'b يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا وسماني بود يا رسول الله رسولك إلهي باكل أبي بن كعب وأنا أقول أخرست فينا قرآنك إلهي أي نبي محمد ليها يا أبي بن كعب ربي غيباي أمري إن كقد الآخر هذه قد هذا سورة البينة لم يكن الذين كفروا markaasuu wasamaani ma rabbigayba aniga magacaabay markaasuu ha subhanallah farxadu ku saxda habeenka saxaabigaasi bal ka warraba tasawwaru takhayalu bal ka fikra ilaahay ba magacaabay oo leh ya muhammad ya jibriil u sheeg nabi muhammad waxaad ku tiraahdaa ubay ibn ka'b suurada korkiisa ku akhriyo ma rabbigayba magacaabay fabaka ubay farxad bul ooy فرحت يبكون من شدة الفرح محادتك إلهي كجعل هذا هودو دمي راعين هنونك راعين شهودو دمي راعين شريعة دي راعين باطلك مي راعين حق أي راعين نفتو دمي أضعين إلهي بأضعين دينتا إسلام لماذا إنكم أنت أن هيسنو أن إنكم أنت أن كو أبتر سنينو أمك الرون شيئا بس دينتو ودينتي صلاة وصلاتي قرآنك وقرآنكي حديثك وحديثك قبلة وقبلتي صونك وصونكي مساجد ومساجدي حق أوجه سنة يبان أوجه سنة سورة فاتحة أخرنا إيمان أخرينا لكن قلوب تسبد شمانتا هاي اسبد لي قلوب تسبد شيء هذا أبي بن كعب وهذا معاذ بن جبل وهذا بلال الحبشي رضي الله عنه وهذه خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين جبريل عليه السلام أيا سمد كسو دادقيا مكو إمنيا وحكى لأم السعودو وحكى لمسدو صلانيا بشارو سدا أيو أسدا خديجة أسدا رضي الله عنها أم المؤمنين يا محمد خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وعدو الشكتا الله السلام كسلام وقسدا وعن الله بشاري وبشاري قصر جنة كويا اللي قلي دونتا قصري ومركي قشنا وحسا وحنا إيا اللغوي يقيلوها بيراتي أيسا مغلي دونين بالله بشاري وبشاري بوكيدي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها
ولا لي البشر كان بني آدم كان إلهي نقو قيمين ما يقبيل إلهي نقو قيمين ما يلعق إلهي مادة نقو قيمين ما يو إلهي وحاو نقو قيمين وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ماشا دون تجوب طبقات دون تكجر وحا إلهي كقول حساب تميا وإيماني الله كبق ويان بلن كيس إلهي كما بحين من باجن إنك أسبدل إلهين أسبدل جل وعلا فنتبع الهدى حنونك هدان رعنو ونهوذي إنك الصوحدنو إلهي تبارك وتعالى صدو دتك الراليق وغن نقضي أيا إلهي نكنا الراليق وغن نقض مركو مسلم إيقادي ومسلم هذيك أنا كادي وخير با إلهي كل الضوني نعمدان وضن هوس هنو اغنو نمبا دائما قال يوستا ننتوغا يا اركي وحور ربا دائما كذهب كي قالغا انو كدعو كحدو waxau ku yidhi halkaad u socotaa wuxuu tuulada baan u socdaa aniguba tuulada baan u socdee han israacnayna mar buu ka yidhi waa tuug tuulada isagu ma socdee jawharadan iyo daymanka qaaligu ninkani watuu rabaa inuu ka dhaco ka xado maalintii oo dhan way socdaan habeenkii ninkan waa daacad oo iska seexdaa laakiin tuugga habeenkii ma seexanayo u shaqaystaa markaasuu saqdii dhaxa uu baadhaa jeebadihiisoo dhan buu ka baadhaa uu ka waayaa waa berigana wuxuu arkaa ninkii oo gacanta ku haysta oo la soo baxayo eegaya xeraysanaya wuu yaabaa war waa kan habeenkii oo dhan waan raadiyaaye habeenkii xaq u dhigaas maalintiina u haystaaye haddana habeenkii kalaa soo galay sidii iyo si lamida uu arkaa isagoo haysta habeenkiina uu ka waayaa maalinkiina wuxuu arkaa ninkii oo haysta magaalada u socdaan markay u dhawaatay runta u sheego wuxuu ku yidhi anigu tuuladaa baan u socday waxaana ku soo raacay jawharada qaaliga inaan kaa dhacon kaa xado maalinkiina waan arkaa adoo haysta habeenkiina waan kaa waayaa habeenkii halkeedgeysaa buu ka yidhi wuxuu yidhi cadceeddu markay dhacdo dhulku madoobaado ayaan jeebadayda ka soo saaraayoo jeebadaadan ku ritaa buu ka yidhi xaguuna ka raadinaya isagu yaa jawharada qaaliga isagay jeebadiisa ugu jirtaa habeenkii laakiin meel kale uu ka raadinayaa mithaalka maxaan u soo qaadanayaa war waxaan ku liibaanaynaa adduunkan iyo aakhira innaka haysanna waa ilaahay amarkiisa waa islaamnimada oo sideeda u qaadanno waa qur-aanka kariimkoon barannoon ku camal falloon ka shaqayno oo wuxuu noo xalaaleeyeyna aan xalaalshanno waxa uu qur-aanku naga xarrimayna aan xaaraan u aragno nebigeenni moxamed aha calayhi salaatu wasalaamna aan ku dabadayanno taasay liibaantu ku jirtaa laakiin maanta liibaanta muslimiintu meel kale ka raadinayaan amniga meel kale ka raadinaynaa ilaahayna amniga iimaanku ku sheegay alladina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtaduun alladina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey tabaaraka wa tacaala walam yalbisuu iimaanahum bidulm iimaankoogana shirki aanan ku ladhin amniga kuwaasa helaya baa ilaahay yidhi amniga ilaahay ciidan kuma xidhin dowladna ilaahay kuma xidhin ilaahay amniga waxa uu ku xidhay iimaan dhabaa ilaahay ku xidhay hadday dadku iimaan dhaba la yimaadaan oo iimaankoogaa shirki aynan ku ladhin ilaahay ballan wuxuu qaaday iimaan amnina inay helayaan hanuunkana in iyaku kuwaas ay mutaysan yihiin nolol wanaagsan baan doonaynaa kulligeen soo ma rabno ilaahay nolosha wanaagsan wuxuu ku sheegay iimaanka iyo camalka saalixa man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan طayiba ilaahay baa leh iimaan iyo camal saalix qofka laga helo labiyo dhidig midku dooni ha noqday baa ilaahay leeyahay waxaan ku noolaysiinaynaa oon ku noolaysiinaynaa baa ilaahay leeyahay nolol lagu noolaato ugu wanaagsan nolosha adduunyada ugu wanaagsanee ugu macaan waxaa ilaahay ku bixiyaa iimaanka iyo camalka saalixa innagu waxaan leenahay maanta iimaankiina waan leenahay salaadiina waan haynaayo oo camal saalix bay ka mid tahee noloshii wanaagsaneeda ilaahay ballan qaaday mee baan leenahay waa kan muslimiinta maanta adduunyada ay rafaadsan yihiin ee dhibaataysan yihiin
iimaanka ilaahay quraanka uu ku sheegayo iyo amalka saalixda waa taa weeyaan waayo dadkaas oo ha iimaankii amalka saalixa مثل با إلهي أوصو قادنا يا مثل والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلهي با أمر خاتك عي إني مؤمنين دبا أي هايين وإلهي أي روميين وإرقد أي روميين وكتبت أي روميين وآخرة أي روميين والرسوش أي روميين ما دام إيمان كوكو إلهي وكامل كدقي كو الله جد وكو سعدك معه إيمانك أمد الله دوني إلا قارسين وإيمانك صحابة أقو muslima ayaa nin sheekha u yimid oo ku yidhi quraanka waxaan ku haynaa wa kaana haqqan calayna nasru almu'miniin waxa ilaahay leeyahay waxa xaq nagu ahaaday gargaarka mu'miniinta maanta adduunyada mu'miniintu waa kuwan dhibaataysan oo gargaarka ilaahay wuxuu yidhi ilaahay mu'miniin buu yidhi gargaarka ilaahay waa noo ballan qaaday inuu noo gargaarayo laakiin mu'miniintu quraanku sheegaya ma nahay maanta inagu كلمة الإيمان قرآن كوي كتالا لكن مؤمنين تي آوية كلمة التقوى قرآن كوي كتالا لكن متقين تي آوية كلمة المحسن قرآن كوي كتالا لكن محسنين تي آوية كلمة الصبر قرآن كوي كتالا لكن صابرين تي آوية كلمة القانتين قرآن كوي كتالا لكن قانتين تي آوية كلمة العلم قرآن كوي كتالا لكن علماء الربانيين تي آوية كلمة الذكر قرآن كوي كتالا لكن ذاكرين تي آوية صفات كان قرآنك وشيغ يا للربا إن قرآنك كنت على ما هنا وعلى الربا وحن قرآنك وشيغ يو ضد نلوشو دا يكون قرآن تاين لهلا الله بهنيا خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أيان يهودي مسكيت كسوق قالوا يري آوي قرآنك نيبو كوري مسلمين تي وعيوت الماء من أبو الدرداء إلى وكا قرآنك يجي سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه أيا سوق مقالة مدينة سوق لي يدو صلاة دي أي دواتي ودadkii bacdaaradii iyo bakharadii iyo baagaashlayaashii iyo dukaanadii intay alaabahoogii oo dhulka sida u yaal ay ka dhaqaaqeen ay miskiidka u aguugayana xagga dambe siigadii boorku ka kacayo markaas Umar ibn Khattab wuxuu akhriyay aayada quraanka ninkii doonaya inuu arko aayadaas rijaalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نكي دونا يا آيات دايو شقين سينو أركو أصحاب محمد وأقوى سيقبوي ما أنت إنك السوق يدين ولا ليال مركا اللي أدامو سوق مسلمة أو مسلمة إن عدانو فرنسيسة هي دينة الإسلام كالسوق لي سكيت كالله كيني إسلام نمدي بالله لقيني muddo markuu muslim ahaabuu gabadh bay markaas la yar sheekaysteen muslimado Soomaaliyada gabadhii buu aabaheedu u yimid oo gabadha waan jeclaaday ii dhisayadna way jeceshahay odaygii baa ku yiri maad islaamta adigu anu muslim baan ahay buu yiri dhowr sano ba islaam baan ahay hal maalin miskiidka kaama arkine wuxuu yiri marka la aadimo muslimiinta masaajida inta soo galaysa iyo inta haraysa yama badan buu ka yidhaadeer ariyama badan yaa inta haraysa badan wuxuu inta masaajida galaysa ku xaroonaysa xilliga la aadimo anigu kuma biirine kuwa banaanka joogan ku biiray buudi kuwa ku biiray marka aadaan ku dhacay la tukanayo kuwa dibadda joogan ku jiraya kuwa soo galaya kuma jira buudi kuma na biirin kuwaas maxaad ku jawaabi waa nin soo islaamay ba hadalka leh waa jawaab meesha taala islaamnimadan ilaahay jalla wa ala waxa uu soo dajiyay ma hayna quraanka ku qornaata maaha ما هين دينتو ميموري أي كتالا ماها قرآن كوينو أوراق قرنا هذا لوما سود جن قرآن كواح الله سود جي إن دات كنا لو سود دينتو أي قرنات صلاة دي بالله نقول فرد يلي وين له لا بقول كبقول مسلمين تو صلاة دينا إلى علينا يام سوان كي بالله نقول فرد يلي وين له نقدان مسلمين تو بقول كبقول كوا صومايا قبض البصر كله نقول واجبية وين مسلمين تو بقول كبقول إنه هو جاي إلى اليام حرام تكدر هذا بالله يدي وين مسلمين تو بقول كبقول حرام تكدر هذا وين دتك مسلمين تو أي نقدان ضد إسلام ما دو كشفوا يلعب تو ذاك موقت نكيد دونا يقول عمر بن الخطاب وأركو آيات القرآن كو شقين إيسا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هاي يقول وأكو أصحاب النبي محمد هل قفكوا هذه ما يسوق إلى المسجد حقه
ilaa bayt illaahi caza wajalla. allahu akbar hadday maqlaan waxay hayaan oo dhan dhulkay sidaa u dhigayeen. qofka doonaya liibaaniya guul ilaahay agtiisay taallaa jalla wacalaa. guul ilaahay baa haya, ciz iyo sharaf ilaahay baa haya. yascadu ilayhi yascadu alkalimu اطayib waalcamalu saalixu yarfacuhu. bilaal alxabashi radia allaahu canhu addoon mamluuka buu ahaa oo magaalada maka lagu dhex addoonsado la cadaabo, laakiin markuu acmaal iyo iimaan la yimiday waa ka nebi maxamed uu leeyahay yaa bilaal xalaytoole shanqadhaada kabahaaga shanqadhoodii jannada hortaydaan ka maqlee halkaa maxaad ku gaadhay ii sheeg buu rasuulku ku yidhi. wallaahi habeenkaa bilaal sidee buu ku seexday kula tahay habeenkaa farxad daraaddeed. madaxweynea ku ammaanay, manajarkiibaa ku ammaanayey, aabbahaabaa ku ammaanaya oo ciyaalka adiga kaa dhex ammaanayey. ilmaha marka la yidhahdo wuu farxayaa. ninka shirkadda u shaqaynaya marka la yidhahdana ninkii shirkadda iska lahaa ee kambaniga lahaa ayaa shaqa fiicnidaada hadalhaya markii la yidhaahdana farxad buu markaa qofkaasi rayrayn baa laga dareemayaa. haddii la yidhahdo wasiirka iyo ministerka ku ammaanayeyna ka sii daranba. maxaad u malaynaysaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa bilaal ku leh yaa bilaal xalaytoole kabahaaga shanqadhoodii baan jannada hortayda ka maqlay. bilaahi calaykum habeenkaa bilaal sidee buu ku seexday kula tahay farxad daraaddeed. siduu ku seexday mucaad habeenkii nebi maxamed maalintuu nebi maxamed mucaad binu jabal gacanta uu qabtuu ku lahaa wallaahi innii la uxibuka yaa mucaad, ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay. walaalayaal waa rasuulka ilaahay hadalkaa waxa leh, waa rasuulka ilaahay sal alla alay wasalam. ma aha shakhsi caadiya hadalka qofka leh. inan yar oo 20 jirku u buuxsamin oo khasrajiya ayuu nebi maxamed gacantaytuu qabtay uu leeyahay wallaahi innii la uxibuka yaa mucaad, ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay. oo maxaa lagu jeclaaday raggaas? oo ayaa jeclaaday? ma gabadh baa jeclaatay? ma madaxweynaa jeclaaday? ma siyaasi baa jeclaadaad moodaysaa? ma munaafiq baa jeclaadaad moodi? waa muxamed calayhi salaatu wasalaam, khalqiga ilaahay abuuray kii ugu khayr badnaa, ugu sharaf badnaa, ugu karaamada badnaa ayaa ku leh yaa mucaad wallaahi innii la uxibuka. haddaad meheradaada dhex joogto waxaad ka dhigan tahay adiga oo leh ilaahuw meheradayda aan dhex joogaa kaa weyn oo kaa qiimo badan. aadaankii oo dhacaya haddaad maqaayadda fadhidood qayilayso waxay ka dhigan tahay qayilaadda iyo fadhiga halka aan fadhiyo ayaa amarka ilaahay igala weyn bay ka dhigan tahay. lisaanulqaal maha waxaad ku leedahay, waa lisaanulxaal waxaad ku leedahay. haddaad ubadkaaga la joogto aadaankii oo dhacayo aad maqlaysid waxay ka dhigan tahay inaad tidhi amarka ilaahay ee laygu yeedhay waxa igala qiimo badan, ubadkayga igala qiimo badan. waxallii wixii amarka ilaahay loo dayacaana ogow waxaasi uu dayacan yahay khalaas. ninka salaadda dayacayna wax kastana uu dayici. salaadda ninkii dayacay reerkiisa uu dayacay, mas-uuliyad hadduu hayana uu dayacay, tuu dooni haddii loo dhiiba uu dayacay. waayo cumar binu khadaab radia allaahu canhu khilaafadiisii buu odhan jiray waryaada zamankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyiga ayaa shaqaynayey, qofka qalbigiisa waxa ku jira ayaa nebiga looga warramayey. deedna markaasaa nebigu qofka uu kala garanayey ma muumin ba mise waa munaafiq mise waa kaafir. amaa waxyigii uu go'ay buu yidhi annaga waxaan eegaynaa daahirkiinaan eegaynaa buri cumar binu khadaab. ninkan khayrka aragnana waan aaminaynaa oo talada ummadda waxbaan uga dhiibanaynaa. ninka khayr aan ka arki weynana aamini mayna buri cumar binu khadaab. nin ayaa u yimid oo yidhi yaa amiira almu'miniin waatan dawladdii islaamku ballaaratee aniga maad iga dhigtidaa maaragtaane waali, maad iga dhigtidaa maaragtaane nin mas'uula oo magaalo maad iga dhigtidaa xaakim. markaasuu cumar ku yidhi waad u qalantaa, waa runta, beritoole ii kaalay buu yidhi noodkaan kuu diyaarinayaa, magaalaan kuu dhiibaya oon amiirkaaga dhigayaaye. nasiib ninkii wuxuu cumar ku soo noqday xilli cumar binu khadaab ubadkiisii ay dhunkanayaan oo isaguna dhunkanaya oo ciyaalkiisii iyo isagu wada ciyaarayaan. markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin oo ciyaalka yaryarna maad dhunkanaysaa? markaasuu cumar ku yidhi soo ubadkaygi maaha maxaan u dhunkan waaye? wallaahi anu intaasoo ubada ayaan dhalay buu yidhioo weligay midna kama dhunkan buu yidhi ninkii. markaasuu cumar ku yidhi warqaddaan kuu qoray ii dhiib. warqaddu maxaa ku qornaa? waddan dhan buu u magacaabay inuu ka noqdo amiir. warqaddii intuu qaadu ka jexjeexay markaasuu yidhi ubadkaagii baad u naxariisan weydee seed ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi, orodoo reerkaaga u naxariisan buu ka yidhi. maa cindak raxma cala alahl,
kayfa tarxam cala alumma muxamadiya ubadkaagii baad u naxariisan weydood u damqani weydood dhunkani weyday ood wakhti ku bixini weyday ood tarbiyadayni weyday ood jeclaani weydee si aad ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi orad naxariista gurigaaga ka soo bilaab buu ka yidhi halkaa ka soo bara raxmadda diin dhinac walba kaa dhisaysaa ilaahayna siiyey innaka boqolkii boqol maanta mujtamaceenna haddaad meel walba marto ma aha waddankeenna oo keliya meel kasta caalamka mar maanta nuqsaan diineed baa taala caalamka nuqsaan adduunye ma taala adduunyadu way biiraysaa dhismuhu magaaladeenna hargeysa muu biiraa mise uu naaqusmay war ii sheega wuu biirayaa soo maa bishii aan maqnaadeen soo noqdoba meel cusub baa biiraysa adduunyadu way biiraysaa laakiin khayrkii muxuu la biiri laayahay maxaa diintu la biiri laadahay maxaa mujtamaceenna islaamnimadu kashkoogee laabtooda uga muuqan laadahay maxaa dhallinyaradeenii sunnadii nebigu uga muuqan laadahay adduunyada waa loo dadaalayaa laakiin diinta maanta cidna u dadaali mayso adduunyadu agoon maaha islaamihiibaa adduunyada ka shaqaynaya oo inamadiibaa adduunyada ka shaqaynaya oo rag iyo dumarba adduunyada ka shaqaynaya diin shaqadeeda marka la soo gaadhana culammadaan ku riixaynaa bas war ayaa ku riixnaa culummada aanu caalim ma yihiin salaadda caalimka lagama rabo salaadda faradka caalimkaa laga rabaa jaahilkaa laga rabaa taajirkaa laga rabaa faqiirkaa laga rabaa madaxweynaha laga rabaa soonkauna waa la mid ilaaha soonka faradkaaga dhigay salaaddana faradkaaga dhigay diintan inaad wax gashatood u dadaashidna ilaahaasaa ku amray diinta inaad ka shaqayso inay diin noloshaada ay timaaddo mujtamaceenna diini ka muuqato dadaal bay nooga baahan tahay lidaalika zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dadaalka diinta ummaddu umaysan kala hadhin wallaahi umay kala hadhin cajiib abu talxa ninka la odhan jiray waa ansaari buu ahaa ummu sulaym radia allaahu canha waa anas binu maalik hooyadii oo mu'minada oo muslimada ayuu damcay inuu guursado markaasuu u haasaa u yimid inaan ku guursadaan rabaa ee ka warran waxay ku tidhi maad islaamtay markaasuu idhi may laakiin diin baan haystaa anu bal gabadha hadalkay ugu jawaabtay eeg markaa bay ku tidhi diinteed haysataa afalaa tastaxyi maad xishoonayn bay ku tidhi maad xishoonayn diinteed haysataa ma ninkaaga qoriga caabudaya iyo dhagaxa la qoray caabudaya ayaa le diin baan haystaa xishoo bay ku tidhi diin ma haysatid diin annakaa haysanna diin waa diinta nebi maxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam hadaa huwa diin markaasuu ka sii jeestay way ka daba hadasho waxay ku tidhi in aslamta fa innii laa uriidu minka sadaaqan hayrahu bay ku tidhi hadal macnihiisu ahaa yaa abaa talxa soo noqo bay ku tidhi haquusan kaalay haddaad soo islaamtid bay ku tidhi meher iyo mariin dumarku ragga waxay xaq ugu lahaayeen kaa dooniba maaya islaamnimada aad soo gashay ayaan meherkayga iyo mariinkayga u qaadan bay ku tidhi maxaa gabadha agteeda qiima lahaa bal ii sheega ninkaa inuu islaamuu naar ka badbaado cajiib oo islaame wuxuu yidhi ma intaa unba ahaa waxba iga dooni maysid waxba kaa dooni maayo islaam bas waa yahay anas radia allaahu canhu oo khaadimkii nebigeenna ah oo iyadana inankeygiiya ayay ku tidhi hooyo gacanta qabo nebiga u gees sal alla alay slam markaasaa nebiga loo keenay markaasuu nebiga hortiisa ku ashahaatay markaasay ku tidhi soo celi anasow markuu islaamo markay u soo celiyey ayay ku tidhi haddaba anasow hooyada u guri bay ku tidhi yacni hooyada maanta laga bilaaba ku ogow bay ku tidhi maaragtaane waa kaasa ninka maadaamuu ballankii buuxiyey anna ballankayga waan buuxiye waa ninkaygii bay tidhi abu talxa gabadh cajiib ahayd ummu sulaym yaa rayta haweenkeennu mee gabadhaa ku daydaana dumarkeennu hadday horumar doonayaan hadday taariikh fiican doonayaan hadday ilaahay ridihiisa doonayaan
may haweenka ku daydaana haweenka saxaabiyaadka Abu Talha caloosh uu la aqalgalay wiil bay u dhashay safar buu u baxay uu soo noqday markaas ilmihiiyo xanuunsa buu ka baxay uu soo noqday markaasuu ku yidhi yaa Ummu Sulaym ilmahayga yara baliga waran siduu yahay waxay tidhi sidii aad kaga tagtay uu ka xasilooni badan yahay isqabooji bay ku tidhi xaaji iska naso safar baad ka timid isqabooji markuu habeenkii u dharkii dhigtay uu yar nastay uu casheeyey gogashiina ay dul yimaadeen ee wada seexdeen saqdii dhexe ee xaaskiisiina ay is arkeen uu barakeeyey ayay ku tidhi intay barida u fadhiisisay yaa Abaa Talha ay dhegayso su'aal baan ku weydiine jaarkeenna haddaan alaab ka soo caariyeysanno oo alaabtoodii subaxda ay nagu yidhaahdaan alaabtii xalay aad naga qaadateen noo soo celiya ma u celin lahayd mise waa u diidi lahayd maya waan u celin lahayn buu ku yidhi markaabay tidhi haddaba ilmaheennii yaraa inakumaan lahayn ilaahay baa inoo dhiibtay ilaahay lahaabaa qaatee anigu waan sabre adiguna iska sabiro maydkiisiina waa ka halkaa ku duudubana kaco iga soo aas bay ka tidhi taariikhda adduunyada gabdha caynkaasa ma soo marin mana soo mari doonaane ogaada ilmaheegii oo shafeecay oo mayda oo aqalka dhexdeeda u yaallood mara ku duuduuban ayay sariirtan ama firaashkan dushiisana ay ninkayga ku dul raalli gelisay uu yaabay Abu Talha maxaa tidhi waxay tidhi ha walwalin in waa lana bare tarbiyad baa la baray iyaka inna lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musammaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxau saxaabadiisa ka dhaadhiciyey saxaabiyaadka gabdhihiisu ugu horreeyaan waxa uu baray waxa ilaahay uu qaadanay isaga unbaa iska leh waxaan haynana isaga unbaa inoo dhiibtay war maxmaan leenahay innagu ma lehid maalintaad hooyadaa ka soo baxday in anu hooyaday ka soo baxay walaa islaam baa ila socotay walaa inamaa ila socday walaa gabdhahaygaa ila socday mid walba keligii buu caloosha ka soo baxay keligiina caalamka uu ka baxayaa ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وإذا وحيكون الشيء أذيقوا أويايا دتكون أكتاد أي فرح سيهين وإليهين ويل بعد الشيء مع نبحنا إليهين إلهي أمر كيس انت هذا الدوية كنا شهي إلالي ودينت إلالي وصلاة إلالي وأمرك إلهي إلالي سمع أنت لمن يسد هذا الدوية وقبح هذا أديك وفرحسن لا تكون أكتر هذا يكبر ورطان تربية دابا صحابة الله بري وحا إلهي وقاتنا يساقون بأسكاله وحان هاي سننا إلهي جل وعلا يساقون بأنه ديبتي جلما هي واكا ميتك واكا سكعسو آسبي كتري لأن مركاسو أبو طلحة رضي الله عنه وحوسمي مركا وحاوتك النبي عليه الصلاة والسلام رسول كيف أشتغي مركا أبو النبي كيري أعرستم الليلة يا أبا طلحة حليتو لي مال عروستيو عروس ماذا هيدو حاجيات إسلام هذا حالي ما بركيسي مركا سوري يا رسول الله مركا عشيي يدينا أم بركي كذب أي أرنت إيش يكتبو كيري مركا أبو النبي كيري بارك الله في ليلتكما اسأرقيني حليتو الله إني بركي أبو كيري اسأرقي حليتو الله إني بركي habeenkii ducadii baa ilaahay u aqbalay caloosheediiba habeenkiiba raximka ilmaha u galay ilmihii wuxuu noqday wiil buu noqday wiilkii maalintuu dhashayna nabi maxamed baa loo keenay cabdullaahi buu nebigu u bixiyey yaa taxniigga nebiga u sameeyey magaca nebiga u bixiyey dhabtii nebi maxamed baa lagu qabtoo lagu ciyaarsiiyey waxaa uu yidhi sufyaan bin cuyayna waxaa la arkay ilmihii yaraa oo 9 wiiloo culamaaya isaguna dhalay ilmo barakaysan muxuu dhalay muxuu dhalaa sheegade awlaad barakaysan buu dhalay mid barjeeyana muxuu dhalay mid barjeeyoon buu dhalay qabiili buu dhalay qabqabluu dhalay siyaasi buu dhalay laakiin ninka diini buu dhalay ninka barakaysan reer duriyad barakaysan buu dhalay ilmo barakaysan buu ahaa barakadiisa waxaa u daliila habeenkuu raximka ku dhacay buu nebigu yidhi baaraka allaahu fii laylatikuma isaragiini xalaytol allah inii barakeeyo maalintuu dhashayna dhabta nebi maxamed baa lagu ciyaarsiiyey taxniigga nebiga u sameeyey magaciisana nebiga u magacaabay sufyaan bin cuyayna oo ruwaatulxadiis ka mid ahaana wuxuu yidhi 9 wiiloo culamuu ilmihii dhalay buu yidhi
الله أكبر. هذه أم سليم رضي الله عنها. ولا ليال دتكاس أكتود الدين تقيم الله هيد قبرداس بدعي جيبي كويب ستدين مهرية مرين وحي حقول هيد وحي كدور بدي إنه أبو طلحة دين الإسلام كسوق الله إن كنا ما أنت مسلم ولا الكينا وقرابة إنه تلكينا أي أكتنا بلا صلاة كل من أيا قرمان دين توشجنا ما تقعنا سلام الله ده قرم اسكو قرمتا مركو قف دين مركا ببراروجي ملا عاصي قبرجي سي ملا تجي نعشكي ملا سوق هذا كفنكي ملا سوق جوي بد ريرك ودن بس قبورها يمن معي كو قبانا يا نواكاس وارين توقف كنول يا الربا قعنتين لا سوق قبطو مسكيتك الله كانوا لغو نقنقدو لغو نقنقدو لو دعيو لا اكرامو مركزك لا geeyo dacwada lagu soo xidho loo dulqaato loo sabro loo kaadiyo laga quusan ambiyadu ma quustaan diintu dadaalka bay nooga baahan tahay kulligeen insha Allah dadaalka diinta ma gudoona insha Allah dhahada war si fiican u hadlo insha Allah dhahada diinta dadaalkeega han gudoono oo marka laga yiraahdo waqtigaaga qaybi oo ilaahay dartii u bax marka laga yiraahdo xaga dambe ha eegin xaga dambe ma taqaana islaanta meherada ubadka waa xaga dambe وحق الضمبي فأما من أوتي كتابه وراء ظهره معكو حقا فسوف يدعو ثبورا ويصلى معكو حقا إنه كان في أهله مسرورا حق دنبها إيجن غير كان ضيع لكم له هتضيعن غير كاغا كاجها كاجتجن بلا مصاريف كاجتجن sidii ninkii nabiga u yimid deegda awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa muxuu ku jawaabay nabigu awrkaaga dabar ilaahayna tala saar reerkaaga masaariiftooda uga tag ilaahay dartiina u baxa waqtigaaga yar qaybi sir qorshe insha Allah dhahada balkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto amni iimaanka Allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meel ay joogaan muwaafaqiin midnimana Allah siiyo طاعة الله إنه معانيه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا سند من لا سند له ويا عماد من لا عماد له يا منجي الغرغى يا منقذ الهلكى يا أمان الخائفين ويا جار المستجيرين إلهي سيدي ومولاي هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أكرم الأكرمين أكرمنا بنور الإيمان اللهم ردنا إليك ردا جميلا ألف بين قلوبنا اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اخرجنا من الظلمات إلى النور جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين